iyadoo ay maalmihii ugu dambeeyay gudaha magaaladani Burco ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan golaha guurtida Somaliland isla markaasina ay u joogaan sidii ay xal waarta uga gaari lahaayeen deegaankaasi Balli Diiriye Guuleed oo ay dhawaan ka dhacday dirir colaadeed oo dhex martay laba beelood oo wada dega deegaankaasi xildhibaanadan ka tirsan golaha guurtida Somaliland ayaa maanta dhaariyay 15 xubnood oo isugu jira cuqaal iyo waxgaradka labada beelood ee isku haystay deegaankaasi Balli Diiriye Guuleed oo dhanka waqooyi ka xigay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana cuqaashan iyo waxgaradkan labadani beelood ay si rasmi ah iskula qaateen in la adkeeyo nabadgelyada deegaankaasi isla markaasina laga hortago wax kasta oo khalkhal gelinaya nabadgelyada barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye oo ugu horeyntiiba la hadlay labadani beelood ayaa sheegay in loo baahan yahay in la tixgeliyo sharciga ay soo saari doonaan guddida golaha guurtida Somaliland isla mar ahaantaana ay sharciga u hoggaansamaan labadani beelood ay ku maanadaan waxa filayaa labada dhinac ee walaalaheena ay soo baxaan qaadanayaan oo ku qanacayaan sidaas Yuusuf Cabdillaahi Cawaale oo kamid ah xildhibaanada golaha guurtida Somaliland ahna gudoomiyaha guddidii loo xil saaray khilaaf saarista labadani beelood ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka Balli Diiriye Guuleed ayaa sheegay ujeedada uu kulankani daaran yahay iyo in labada beelood ay kalsooni buuxda siiyaan golaha guurtida Somaliland si go'aan adag looga soo saari lahaa khilaafka beelahaasi walaalaha ee khilaafku ku dhex maray deegaankaasi Balli Diiriye Guuleed hadduu dhaaranayo ninka oo hayaano u dhaartay ninka loo hayo iyo ninka hayaano loo weydaasay marka annaga idin qabanayno annaguna ma dhaarsannahay labada qayboodna way dhaaranayaan xildhibaan Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan oo xogayaha guddida ayaa isna dhankiisa akhriyay 15 xubnood ee la dhaariyay labada beelood ee khilaafku ku dhex jiray yaarka reerkoodu wakiishay nabadgelyadaas ka shaqeysa wax nabadgelyo arrinka ay ka geeyeen nabadgelyada ka gelisay maygu wallahi ba maygu billahi ba maygu tallahi ba وبروقاد محمد شبكة عالمية قاد مدر نيوز مقالة برعو